بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. سورة طارق ayaana kan ka gelina waa suurad makiga, qur-aanka makiga ay ka mid tahay. waa suuraddii 86 qur-aanka ay suuradihii soo degideeda markii laga eego. aayadaheeduna waa 17 aayadood. waxay soo degtay suuratulbalad gadaasheedii soo degtay. waxay ku bilaabanayaa dhaar ilaahay uu dhaaranayo subxaanahu watacaala. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanah, bismi illaahi araxmaan araxiim. magaca ilaahay baan ku bilaabanaynaa, allaha naxariista guud iyo midda gaarka intaba naxariista. rabbi wuxuu yihi wasamaa'i ayaan ku dhaarsay, samadii baan ku dhaartay, samada naga sareysa. wataariqi iyo xidigii dheelmanayey, xidigii hameenkii dheelmanaya taariqa ah, xidigaas oo hameenkii muuqanaya oo loo jeedo ayaan ku dhaartay buu yihi ilaahay. wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyaa buu yihi allah nabigiisa soo la hadlaya. ma taariqu, taariq waxa uu yahay ma garanaysaa layidhi. yacni taariqaas dheelmanaya oo hameenkii dheelmanaya oo ilaahay ku dhaaranayo subxaana, ma garanaysaa baa layidhi. annajmu waa xidigii athaaqibu ee gudbayey, daloolinayey, ka gudbay oo ka maaragtay mugdiga dhan soo qodayay. oo yacni waxaa weeyaan hameenkii markii la eego wuxuu ogyahay inuu soo dalooliyey muxuu ahaaye mugdiga hameenkii oo dhan uu kasoo dhex baxay. thaqabku marka waa god, yacni meel daloosho waaye. marka wuxuu soo dalooliyey mugdigii oo dhan uu soo dalooliyey kasoo gudbay. marka waa xidigaas daloolinaya oo gudbaya mugdiga soo dhex maraya weeyaan. kaawey ayaan ku dhaartay. dhaarta jawaabteedii waata marka. in kullu nafsin ayuu yihi alle, naf kulligeed ma ahaanin, inta naafiye ka dhig. in kullu nafsin maa kullu nafsin, naf kulligeed ma aha, yacni naf kasta oo ilaahay abuuray waaye. lamaa calayha ilaa calayhaa korkeeda waxaa ahaaday xaafidun mid xifdiya oo ilaaliya. xagga abuurideeda iyo baaq ahaashadeeda ay baaqi tahay mid ilaalinaya oo dhowraya ayaa ahaada waa ilaahay subxaanahu watacaala. ama mid xifdinaya, xaafidun mid xifdinaya, camalkeedii u xifdinaya oo malaa'igtii ah. oo wax alla wixii camal ah ay la timaado naf kastaahiba u qoraya oo maaragtay si loo xisaabiyo maanta qiyaame. waina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun. taasoo kale waaye markaa. yacni wax alla wixii aada suubido oo dhan ayay malaa'igtaasi kuu sajilaydaa, kuu qoraydaa. hadday khayr yihiin iyo haddii ay wax kale yihiin intaba waa lagu qoraya. marka ilaahay uu ku dhaartay subxaanahu watacaala. yacni samadii aan ku dhaartay iyo xidiga hameenkii dheelmanaya makhluuqaadkiisay ka mid yihiin. naf kastaba waxaa ahaaday mid ilaalinaya oo xifdinaya oo dhowraya, camalkeeda u xifdinaya. wax alla waxay suubido aanan waxba ka fakanaynin. marka meeshaas waxaa lagu tusayaa adduunkan inta aada joogto waxa aada qabatahay waa maxfuud, waa xifdisan yihiinoo way kuu qoran yihiin, meelay ku yaalaan. berrina way ku sugaysaa camalkaas. maalintaad ilaahay hortagto ayaana lagu xisaabinayaa. meeshaa marka waxaa ka soo baxaya qof walbaahiba inuu eego waxa uu ilaahay berri la hortegayo, ee ku dadaalo markaas waxa khayrka iyo wanaagga, xumaantana uu ka fogaado oo aada iyo aada uga fogaado.
ilaahay wuxuu yidhi marka subxaana markay sidaa tahay ayuu alle wuxuu yidhi falyandur ha eegaa layidhi alle al insaanu insaanku bal ha eego ha ku cibro qaato cibro qaadasho waaye ha fiiriyaa layidhi mimaa kii xaggiisa ha eego khuliqa laga abuuray bal wixii laga abuuray ha eegaa laleeyahy xaggee laga abuuray waa wax lagu cibro qaato weeyaan asalkaagu xaggee ka yimi aada maaragtay markaad isleedahay isweyneynayso ood madax adayga la imaanayso oo gaalnimada la imaanayso oo xaqa aada diideydo horta asalkaagu xaguu ka yimid dabaryaradaada bal fiiri meeshii lagaa keenay marka ilaahay wuxuu yidhi falyandur ha fiiriyo ha eego al insaanu insaanku ha eego mimaa kii xaggiisa ha eego khuliqa laga abuuray ilaahay baa kuu sheegaya subxaana wuxuu yidhi alleh khuliqa waxaa laga abuuray insaankii min maa-in biyaa laga abuuray daafiqin ee boodboodaya biyo oo xoogaa xoog leh markay baxayaan yacni markii camalal jinsiya maaragtay ninka iyo xaaskiisu ay kulmayaan biyaha manigaahu nin kasoo bax xoogay ku baxayaan taasa wasfigii sifadii ay laheeda lagu sheegaya xaaladaasu oo biyahaasoo boodbood raximka hooyada ku dhacaya marka waxaa laga abuuray insaankan kibirka badanoo isla weyn meesha dhama laga abuuraa waxay tahay min maa-in biyaa laga abuuray daafiqin ee boodbooday shubmaya shubmaya fii raximi lum ku shubmaya maaragtay ku daadanaya yakhruju biyahaasoo kasoo baxaya min beyni sulbi dhabarka muxuu ahaa dhexdiisa iyo wataraa'ibi kalxamaha dhexdooda kasoo baxaya yacni sulbi rajulina waa la yihaa iyo taraa'ib ilmar-a yacni meesha naasaha korkooda ah iyo dhabarka ninka ayaa la yihaa sida mufasiriintu ay badan yihiin biyaha daafiqa ahu ama qolona waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa yacni sulbi rajuli walmar-a loo jeeda labadaba oo labaduba way kasoo baxaan oo isku mid waaye mufasiriinta qaarna saas ay leeyihiin marka biyahaas halkaasi kasoo baxayaan waay biyaha sidaas ah ayaa laga abuuray insaankan kibirka badan leh oo xaqa diidaya oo risaalada ilaahay diidaya oo gaalnimada la soo taagan halkaas asalkiisa waa halkaa bal tabaryaradaada ag meesha lagaa keenay haddana waxaa lagu dareensiinayaa waxa kaa dambeeya insaankan kibirka badanow maxaa kaa dambeeya ilaahay wuxuu yidhi innahu alle calaa rajcihi soo celintiisa oo lasoo celiyo insaanka lasoo celiyo yaa laqaadirun kii kara weeyaan waa awoodah yacni insaankan laga abuuray biyahaas daafiqa ah waxaana ilaahay inuu dib u soo celiyo bacda mowtihi geeridiisa ka bacdi yacni markuu dhinto oo la duugo oo qabri lagu duugo maalinta qiyaame in ilaahay dib u soo celiyo oo mar labaad lasoo saaro rabbi waa awoodaa wey awoodda ilaahay waxba lama ah markii horeba isaga abuuray soo celintiisuna waa sidaas oo kale wax dhibo male weeye innahu ina allaha alle calaa rajcihi insaanka rajcigiisa soo celintiisa oo mar labaad la soo abuuro bacdiga lagu soo celiyo laqaadirun kii kara weeyaan yowma maalin buu soo celin alle yowma maalin buu soo celinayaa tublaa lasoo daahirinayo banaanka la keenayo waay tublaa ay tukshafu waayo tubla saraa'iru saraa'irta sirta banaanka lasoo dhigayo wixii sir ahaa oo qofku uu qarsanayay oo caqiidadiisa oo uu rumaysnaa qalbiga wixii kaga jiray oo uu qarinayay maalinta banaanka lasoo dhigayo waa maalinta qiyaamaha oo qof walbaba caqiidadaadii ayaa banaanka lasoo dhigaya mukawinaat yacni qofku wuxuu qalbigiisa ku hayoo dhan ayaa maalintaas waxaa weeye lasoo dhigaya daahira lilcayaana leh banaankaasa lasoo dhigaya niyaadkii wixii maaragtay qalbiga ku qarsanayay acmaashuu qarinayay wixii oo dhan wixii wanaagsan wixii intaasoo dhan banaanka lasoo dhigaya waay maalintaas ayaa lasoo celin waa maalinta wax kastoo sir ahaa oo adduunka qarinayday maalinta banaanka lasoo dhigayo famaa lahu buu yidhi alla uma sugnaanin
lahu lilinsaani weeyaan insaankii uma sugnaanin min quwatin awood insaankii wax awooda fii daalika alyowm maalintaas sirta lasoo bandhigayo qiyaamaha ah insaanku wax awooda ma lahaa leh oo yudaaficu can nafsihi oo naftiisa uu ku difaaco maleh naftiisa isma difaaci kara waayo walaa naasirin mid u gargaarana ma lahaa layidhi naasirkaasoo yantasiru bihi uu ku gargaarsado oo isku difaaco war ii kaalo gacnaysi uu yiraahdo ya labadaba maleh yacni awood gaaraho asagu leeyahana maanta tabari ma jirto cid kaluu maaragtay isku tiirinayo maaragtay uu tabar ka dhiganayana maleh labadiiba meel cidlaha taagan tahay waay tabaryarada intaa la eg waxaad maaragtay mahudho u tahay waa camalkaagii hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahay waa xaqiiqo aan la wada huraynin oo qof walbaba la gudboon intaan waqtigu kaa dhammaanin inaad u diyaar garowdo maalintaas oo camalka wanaagsan aad ku dadaasho khayrka daacada aad ku dadaasho cibaadada ilaahay aad ku dadaasho yacni taas waaye waxa aad ku badbaadi kartaa maalintaas haddana mid kalaa la gale ilaahay uu kasii gudbay middaa wuxuu yidhi alleh wasamaa'i samadii waa mar labaad samadii yaan ku dhaartay buu yidhi ilaahay samadaa naga sarreyda daati rajci soo celcelinta u saaxiibka ahayd daati rajci yacni soo celcelinta rajcigu waxaa loo jeedaa waa matarka roobka yani markaan waa di'in haddana marka loo di'in sidaas noloshii alle ku taagane yani samadaas roobka soo celcelinayda oo madarka soo celcelinayda ayaan ku dhaartay waaye saxaabka biyaha xambaarsanoo hadba soo noqnoqonaya kaasaa oo soo celcelinaya roobkii kaasaan ku dhaartay wal ardi dhulkiiyaan ku dhaartuu yidhi alleh daati sadci dhambalanka u saaxiibka dildilaaca marka biyuhu ku dhacan dhulkii abaaraystay ee doogu ka soo baxayo miruhu ay soo baxayaan dhulku waa dilaacaya markaasaa mirihii soo baxayaan cagaarkii ay soo baxeen geedihii yararka ahay soo baxayaan ciiddii kala rogay u kala qaaday inahu allah alle weeyaan dhulka sidaa u dildilaacayo markaa geedihu iyo doogu ka soo baxayo wal ardi dhulkiiyaan ku dhaartay daati sadci u saaxiibka dildilaaca inahu isagu ali marka inahu damiirka waxa u celinaysaa qur'aanka waaye inahu ay ina alqur'aana qur'aankaanu akrinayno laqowlun hadal weeye faslun ee kala bixin ah waaye waa fasal yacni hadal kala bixina waa qowl go-an weeye oo la kala saarsaaray oo aan isku darsanayn waaye yacni waxa weeyaan faslun faasilun kii kala saara weeyaanoo bayna alxaqi waalbaatili xaqa iyo baadilkuu kala saaraya hanuunkiiyo baadiduu kala saaraya wax kasta waa caddaynaya waay wax kasta kitaabkaanu waa caddaynaya yacni xaqa asaguu ku dhex jiraa isagaa kuu caddaynaya waxa ku waajibka ah iyo waxa kaa xariman oo lagaa reebay waxa kula gudboon inaad suubido waxa kaa mamnuuca inaad suubido meesha aad ku badbaadayso iyo meesha aadan ku badbaadaynin intaba waxa kuu caddaynaya huwa hada alkitaab waa kitaabka isaga qur'aanka qiimaha badan weeyaan inahu laqowlun fasl ilaahay wuxuu yidhi wamaa huwa mana ahaa layidhi qur'aankani bilhasli cayaar ma aha cayaar hadalkiisu cayaar maaha waa dhab waaye yacni waa qur'aanku waa dhab wax lagu cayaaro lagu sheekaysto ma ahane waxaa waajib ah an yuhtadaa bihi in lagu hanuunsamo oo la raaco oo qofku agtiisa aada iyo aada ugu weyn mucadam uu yahay oo qalbiga aad qur'aan ka weyneydo ood ku camal fasho oo amarku ku siina aad qaadato waxa uu kuu sheega aad ku maaragtay yacni aad ku hanuunto kaasaa la rabaa cayaarta laga fogeeyo waxaa weeyaan qur'aanka cadamadiisa iyo weynankiisa iyo in aasaa u dareentaa la rabaa maaragtay wamaa huwa bilhasli ma ahaa le yacni cayaar qur'aankani ma ahaa layidhi marka ilaah wuxuu yidhi innahum iyagu yakiiduuna way hagarsanayaanaa layidhi kaydan hagarse iyay hagarsanayaan hagar bay la wadaan oo waxay isku dayayaan qur'aanka inay ka hor tagaan oo dhagar u maleegaan waa gaaladii oo dacwada ilaahay ay ka hor yimaadaan diintii ilaahay ay ka hor yimaadaan oo intaas ay makri u maleegaan isku dayayaan yakiiduuna way hagarsanayaan kaydan hagar ayay hagarsanayaan buu yidhi
waakiidu aniguna waan hagarsanayaa kaydan hagar. yani midda dambe kaydka waxaa loogu magacaabaya la yidhaahdaa yani kaydku waxa weeyaan yani muxuu jazihii waa amaalmarina waa laga amaal xumaanta ay suubin amaalkeedii waa yani muqaabilkeedii weeye. marka kayd matiina oo aysan awood u lahayn yani inay ka fakadaan baan ku dhifanayaa waa. istidraaja baa lagu suubinayaa min xayثu laa yaclamuuna meel aanay ogeyn. markaasaan qabanayaa akhda casiizin muqtadir ayaan qabanayaa way. oo markaas ay meel ay kaga fakanayaan aysan jirin. marka nin kastoo iswaala oo ilaahay diintiisa ka hor yimaada oo isku daya inuu dhibaato u geysto fii nihaayati almataaf waa la soo qabanayaa. gacanta ilaahay meel ka tegi maayo. ina batsha rabbika la shadiid ayuu yidhi ilaahay. alla qabashadiisu mid adag weeyaan. cadowgiisa uu qabto meel ka tegi maayaan wa. ilaahay wuxuu yidhi marka nebigaas oo la hadlaya sala allahu calayh wasalam famahil koro baa layidhi nebi maxamedow yani nimankan gaalada dhibaatada kugu haya koraa layidhi amhilhum u koro famahil ilkaafiriina kaafiriinta u koraa layidhi amhilhum u koro ruwaydan in yaraa layidhi ruwaydan in yar u koro yani ihmaalan qariiban ama qaliilana la yidhaah korasho yar inta aan la farin waayo layidhaha qitaalkooda ama dagaalkii ama jihaadkii aan la farinin nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dacwada intii maka uu nebigu joogay haddii caqiidadiiyaa la saxayey akhbaartii oo dhan qur-aan ku soo degayey dadka iimaankoodiiyaa la sugayey 13 sano oo nebigu uu joogay mako xoogga qur-aanka waxa la saarayay waxa weeyaan xagga caqiidada la saarayay xagga iimaanka la saarayay xagga sugitaanka baxhiga iyo qiyaamaha suurtagalnimadiisa dadka in la baro taasaa la sara xooggu halkaasu saarnaa. laakiin 10kii dambe oo nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam madiina ayaa awaamirtu timid oo badankeedu oo jihaadkii la amray cibaadaadkii kale amarka la suubiyey waxaasoo dhan markaas dambe imaanayaan waa. marka waxaa la yidhi famahil ilkaafiriina kaaladii u sugaa la yidhi amhilhum u koro ruwaydan in yaraa la yidhi yani imhaalan ruwaydan korasho yaraa layidhi. amarka waa lagu siinayaa oo markaas muxuu ahaye jihaadkii lagu farayo oo markaa aad mataqaanaa seefta la saarayo way imaan doontaa udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir. aayadahaas dambe markay soo degeen markaa jihaadkiina amarkiisii markaasaa la bixiyey. laakiin marka hore dacwadaa la waday, diintaa la sharxayey, caqiidadaa la sugayey, aakhirada iyo waxa qofku noqon doonaa laga hadlayey, waxa qof kastaba la gudboon baa la sharxayey. sidaasaa la qur-aanka makigaahna xooggiisa meesha uu saarayahay taasay u badan tahay si iimaanka qofku mid wanaagsan u noqdo oo u dhisan oo markaa awaamirta ilaahay qaadashadeeda iyo wixii nahyo laga reebay ka tegitaankiisu markaasay u fududaanayaan. qofku marka iimaankiisu dhisan yahay, caqiidadiisu ay dhisan tahay, yani markaas oo kale wax kasta markaasay u fududaanayaan waay. ilaahay maaragtay allah inagu anfaco. ilaahay diintiisa maaragtay kuwii ku sugnaada allah inaga dhigo. camal wanaagsan oo beri ilaahay agtiisa wax naga anfaca allah ina waafajiyo. cibaado toosan allah ina siiyo. ilaahay iimaanka saxiixa allah inagu sago. ilaahay agtiisa kuwii ku ceeboobana ilaahay nagama dhigo. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.